السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال الهانتين بملك السؤال جوكتان وحانو دي لنا عيد ونكسن أيضا أيتها عيدان عيدي بشي رمضان أما عيدي الرفو عيداس أمد سيادية آذا اللوغة دبال دقي دامان عالم كإسلام كا أي كمديهين دادكا الصوماليات أيامانتا أما أني راهدي حلقان هدان استوديا إلا فرديا أو برنامج كان مانتا marti iigu ah cabdinuur aadan faarax bootaan oo aan filayo in dad badani ay garanayaan cabdinuur waa nin degan dalkan ingiriiska gaar ahaan magaalada Leicester cabdinuur waxaan oran karaa waa afmaal waa curiye waa gabyaa waa oraahle adigu magaca doonto si cabdinuur caawa halkan wuxuu nooga soo gudbin doonaa waxyaaba na taaban doona ama dareen badan ku reebi doona dadka caawa nasiibka u yeeshay inay barnaamijkan daawadaan marka labaad waxaan rabay inaan ku weydiiyo qofku markuu hal abuur la leeyahay ama gabyaal la leeyahay ama afmaal la leeyahay ama murtiile ama oraale maxaa lagu qiimeeyaa oo tilmaantaas lagu siiyaa بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين intaan horta su-aashaada ka jawaabin dhammaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan intii magacayga iyo muuqayga taqaan eheladayda dal iyo dibadba jooga ubadkayga iyo xaaskayga iyo dhammaan saaxiibaday ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr insha Allah sanadkiisana waxaan leeyahay same iyo siyaado horumar dowladnimo cadaalad iyo horumar iyo maxaan ku raahdaa nabadgelyo buuxda ilaahay inuu ummadda Soomaaliyeed uu maartay ugu deeqo ayaan rajaynayaa intaas baan waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan u gudbiyo intaan su-aashaada ka jawaabin xaqiiqada qofka gabyaaga ah ama gabayga ama suugaanta ama afmaalka qofku siyaabo badan baa loo kala macneeyaa waxaana la ogaaday dhulka Soomaaliya dadka ku nool khaasatan حتى dadka hore u jiray waaba zaid bay ahaayeen laakiin xataa iminka kuwa nool oo dibadaha u soo qaxay oo luqadii ee dhaqankii Soomaalida ka soo fogaaday waxa dhacday inay luqadihii ajnabiga oo ay barteen ay ku ababeen ay ku noqdeen haddana gabyaa marka waa hibo rabbaaniya kow in ay dadka Soomaaliyeed u leeyihiin loona yaqaan dhulkii gabayada iyo suugaanta kaalin weynna afka Soomaaliga uu kaga jiro luqadaha adduunka xagga miisaanka murtida marka laga eegayo gabayga marka gabayaagu waa tiro badan yahay oo noocyo badan buu leeyahay waxaana fiicnaan lahayd in barnaamij gaar ah oo dhinaca suugaanta iyo qaybaha u kala baxdo iyo waxyeeda aynu mar gaara ka yeerano cabdinuur haddaynu usoo noqon hadda bal taas sidaad sheegtay fadhiyo kale aynu ka yeelan doonaa haddii rabbi noo idmo gabaygan waxaad u bixisay digniin culus yaad u digaysaa maxaad soo digaysaa cabdiraxmaan gabaygan waa digniin culus runtiina aniga waxaad moodaa in loogu talagalay xilligu ku habboonaa in ummadda Soomaaliyeed loo gudbiyo oo digniinta loo jeediyo in la taagan yahayba walow maanta maalin ciid iyo farxad ay tahay haddana waxaynu ognahay dalkeennii maanta iyo berri iyo baryahan oo dhan in la rabay in laga yagleelo dowladnimo sal adag dowladnimo tiirarkeedii iyo salkeedii hadda ma garanaysaa la yagleelayo oo la rabo in lagu samata bixiyo ummadda Soomaaliyeed digniintan marka culus ummadda Soomaaliyeed bay horta ku wajahanta dhammaantood madax iyo minjo culumo iyo caamo saqiir iyo kabiir afar qaybood weeye runtii afartaa qaybood waxa ugu muhiimsan maxaad uga digaysaa marka waxaan uga digayaa dhibaatada adduun iyo aakhira seega ah oo ay gacmaha kula jiraan oo dhiiggii dadka la banaystay oo hantidoodii la banaystay oo cirdigoodii iyo sharafteedii la banaystay oo aan haween iyo rag iyo ciroole iyo caruur midna la ceesayn oo qabyaalad 20 sano iyo waliba intii ka horeysay oo laftigooda aan daawo fiican la haysan
oo marnaba degila ummadda soomaaliyeed sidii ay uga bixi lahaayeen qof walbana qarannimada marka laga reebo iyo daljacaylka iyo dadnimada marka laga reebo horta bal asagu xaasibu anfusakum qabla an tuxaasibu wey ya qof walba inuu asagu isxisaabiyo horta xagee baa taaganta inta aan la xisaabinha inuu isxisaabiyo kow waa in uu qofka ogaado war ummadda bal mujtamaca kale intaa iska dhaaftid adigu miisaan ahaan xagee taaganta isxisaabi qofku inuu gadaal u xisaabtamo oo naftiisa intuu hadda joogo oo nafta ku jirto inuu isbadbaadiyo kow markuu naftiisa badbaadiyo nafta ehelkiisana badbaadin karaa ya markaad adigu aad wax noqotod baad ummadaada wax tari kartaa qarankaaga wax tari kartaa marka cabdiraxmaan waxa weeye digniin culus waa calaa shaksi qof ahaan qoys ahaan iyo qaran ahaan baan ummadda soomaaliya u gudbinayaa waxaanan uga digayaa dhimashadu inta aanan geeridu imaan oo aada nooshahay inaad alla in maaragtay qofka uu isxisaabiyo horta uu arko war xaggee halaagaan intaan la gaarin oo ma garanaysaa oo aadan dhiman horta bal adigu u diyaar garow second markii geeridu dhacdo oo dee maxaan ku rahda maalinta qiyaama ay dhacdo waxa dhici doona ayay bidhaaminaysaa martidan digniin culus oo digniintii rasmiga had bay sheegaysaa markaa kadib dadku dee labay u kala baxay laysma haysanayo ya grubna dee saciiray gelayaan naarta maxaan ku rahda jahanamo fa nacuudu billaahi bay dhex geli doonaan qaarna naxariista eebe ayay heli doonaan waa liibaani doonaan dadkaas baa murtidu kala saaraysaa gabagabadana waxaa igu kalifay gabagabada xataa anigoo aan rabin inaan mawduuca ka baxo qiyaamaha iyo xayaatulbarzakha iyo nolosha inta ka horeysa anoo aan rabin inaan ka baxo baa dantu waxay igu kaliftay markaan dadkayga iyo dalkayga silca haysta arkay inaan iyagana aan micnaha tilmaan yar oo kooban ka siiyo waxa dowladnimadu tahay iyo waxa ay noloshu macnaheedu u yahay inaan ka siiyo waayahay cabdinuur garanay dadka waxaad uga digaysaa waa adduunyo waxaad ugu digaysaana waa aakhiro iyo maalinta la isxisaabinayo war badan hama buuxshaan adiga iyo waxaan isu kiin dhaafayaa dadweynaha cabdinuur kusoo dhawow bismi illaah digniin culus soomaalaay dareenkay danigaygu siduu yahay dalalowsin baas iyo daan baad ka lulataan dux waxaan lahayn baad intaad daba ordaysaan qof walbow digtoonow qalin iyo warqadadoon isxisaabi doqonow intaan diiqu kugu ciin dijaal cawarna soo bixin duufaanna kugu kicin dusha caguhu kuu marin oo daryaamin buunkii malag lagugu soo dirin geerid u dinaahiyeyn dhimashadu dan kuu noqon duubkii caddaa iyo kafan lagugu daafiyeyn naxash duudka lagu gelin god lagugu dilaan dilin oo kii dadkuu jecel meeshii yardiisane dhulku dabacsanaadaba damk ciidda kugu siin adigoo daciifo da'nka ciid laguu dhigay lagu seexshay didib adag camalkaaga derisla ah yaan lagaa dareerine dafiraad ma fiicnee degdeg hore u soo noqo dafiraad ma fiicnee adoo diliq candhuufo daradaba ka liito uur hooyo dadab ku ah allihii dadkaa dhigay dembi dhaafid weydii intaa waana diriddeed digniin iyo wax sheegeed waa yeel dardaarmiyo ducaqaba warkiis dhaha bal haddana dantaan rabo dugayda suurkiyo aan ka diga dareen culus xaqii waa la diidaye dabadeed maxaa dhici marka duni dhammaatee qiyaamuhu dilaacee xabaalaha la dumiyee ayax degaysidiisii lasoo dumo dadkoo idil hadbadele dhacyaynta iyo damanaanta waalida wax isdayba ayan jirin oon ceeb la kala dadan qorax diirka laga rogay dusha sare la taago jahanamo la daadihin oo laba diblo u xidhan dabar iyo hoggaan iyo xarga duuban lagu wado dadka loo horaayee la iswada dacweeyee markhaatiga la durayee dahabadaad jeclayd iyo hooyadii ku dihatiyo oday duudkii laga yimid riximnimo la dayrshee qofba tiisu daran tahay rabbaa tala u doroon dadku labay u kala bixin midub waa dulloobaa naartuu dabaashaa waana daar halaagoon loo dulqaadan karinoo cuntaduna dariic iyo zaquum aan degayn iyo da'uxii kufaartiyo wax la doorshay ay tahay
nafta dooji kii yidhi wixii dumaca jiifiyo xidmihii daliiqnaa calool xayr ku duubnayd dabaduu ka dhigayaa dabku markuu bisleeye dambas ay noqdaanba harag lagu daboolaa dibna loo abuuraa si jirkoodu u damqado oy dib u shallaayaan shaydaan dawaadliyo daaquud ismahadiyey isku diray munaafiqa ee duni qarribi jiray kolka naarta loo diro darka hoose ee kulul lagu duqaanduqeeye daakhilkeeda lagu rido ayaa waxa dabaaqtamay rabbi deeqdii kuwa helo intay dunida joogeen samadoon ahaan jiray iyo daalimiintii kolkaas bay ku durayaan oraha doqon magarata ah jeestees daraaddiis oo wiirsi daba yaal alle doorigiiyow saqaraa ku dubataye dacdaad jifta waa maxay duluqbaash wuxuu yidhi salaadaan dayici jiray deeqdana lamaan bixin shaqullaa i duufsaday aakhiraan dafiri jiray ilaa daqarka mawdkiiyo dubba culisi ugu dhacay hadalkiis dalligana doqonnimo badana muduleedka joogoo dembigiisu fudud yahoo dhimbil daba la siiyee dul istaag la yidhiba laabtii dilaacdoo maskaxdii dilaantaye nin walbow digniin iyo daalac reebid weeye intaan amarku soo degin nafsadaada dayn bixi intaa waana diriddeed digniin iyo wax sheegeed waa yeel dardaarmiyo duca qaba warkiis dhaha iminkana baldacaskiiyo daalka goobta lagu tiro daartii nicmada iyo aani dogo dar khayraad liibaan dadkii qaar jannaday dawaafaan walwalkay isdaayaan sariiray dangiigaan raaxadu ka sii daran farxad bay dareemaan durdurada fardowsee afar webi dilqanayaan mididixi qabow iyo biyo diriqle uu yahay mididixi qabow iyo biyo diriqle uu yahay midna geel darmaday sidii dambar xoorle uu yahay midna dawo macaan iyo malab diiqi uu yahay midna dalab khamro ahoo maskax doorinaynoo dawaq iyo wareer iyo daaco kulul lahaynoo naftu dooni uu yahay darkii nabiga kuu dheer kol haddii laguu daro naftu daahir noqono aadan dib u harraadayn jannaduna dallaal tahay bacrin aan la degin tahay damaashaad xaqiiqiyo nimco dagatay ay tahay cuntadana dayaafado dhallinyaro aan daalayn hawshana u daacada kula soo dulmarayaan wax kasta oo doontana dibnahaba adoon furin durba qaada ay tahay waxbaa ka sii daran waxaan iliiba daymoon dhagahaagu soo dumin qalbi dadeed ku soo dhicin jannaday dul yaallaan da'yar baa la wada yahay dadku wada qurxoonoo gabow iyo duqniba jirin dulin iyo qaniin jirin duumiya xanuun jirin dalandool hayaan iyo digarogasha ayan jirin hablo wada da'aadoo indha deeraleeyo dayax naylaqaad iyo quraarado dabooliyo na la daaray moodo dunuunuca masayrkiyo dumar naaquskii iyo dood iyo xumaan iyo wixii reer ku dumayaba dabcigooda laga tiray oo xariir dunteed iyo dahab aan la goyn karin oogada dul saaroo taashkooda dunidaba lagu dooran karinoo diib wada udgoon iyo dusha cadar ku soo dhayay ammaan kula dul joogaan waxaa doonta yeelaan daar lagula hoydiyo darin lagula seexdiyo daandaansi daaye marun aad daymootiyo daawashadooda keliya qalbigaaga deeqdoo maskaxduba daraandari darajiya siyaadiyo daa'im noloshu ay tahay rabbi deeqdi lagu jiro riduhuna ku soo dego daymada raxmaankana daahaa ka faydmoo qalbigaa ku diirsada indhahaa ku doogsada darisnimo allaa jiri war waa dega la mahadshee aan u wada dadaalne docda khayrka tigsada intaa dareen la qaba iyo digniin aakhiraad dhaha waa yeel dardaarmiyo duca qaba warkiis dhaha iminkana bal dunidan dowdama irmaanoon dabubteedu nabad tahay doorkeed wanaag yahay dadka iyo dalkaygii diiwaanka ugu dhigi walaalahan isdooxiyo seediyaal isdilay iyo dariskan iswareemaan u dabqaad isleeyahay dawaduna waxay tahay inay diinta qaataan xaqa dib u jalleecaan nabaddana daneeyaan
xasadnimada duugaan dib u dhisid bilaabaan hamba caano daataba dabadaa la qaban jiray dowladnimo abuuraan oo hoggaansho daacada dig iyo doohma diida ah caanaha madaadsho ah daadihiya shicibkee duddo iyo bulshaba jecel dumarka iyo caruuraha waayeel duqoobiyo da'yarta iyo agoomaha dhammaantood u diirnaxa oo daryeela maantada oo daryeela maatada dabadeed la doorto dabadhilif iyo tuug iyo diradire la waayo beeshu nabad ku daaqdo dastuur iyo cadaaliyo yeeshaan dareen qaran shacab yahow dadnimada shicib yahow dadnimada haddii taa aad diidaan adinkaan isdaynayn dukum daakum baad noqon khayrkuna dabayl raac dabaylaha colaaduna samaday dul marayaan duufaanada colaaduna samaday dul marayaan dulmanow dadkaygow halka dunidu gaartiyo dadaal iyo wax soo saar farsamooyin kala daran arka dowladnimadiyo sida duul u nool yahay dabadeed dhulkeennii miisaan dul saar oo dayac saan u nahay eeg khaladkiina dib u saxa waan hadiidina fidna doonisteed naca shisheeyuhu ma diirnaxo kol ay duni carbeed tahay mar idaga allaha dago mabaadi'da dhigay iyo maskax daashay hadurkeed daalim xeer ka soo fulay qaar horaa ku daalaye adiguna haddaba gelin dhallalaalka dunidani damal hooski weeyo haddaydaan dantiin garan inta degalku saan yahay duunyo aad ku dhaqataan dambar aad ka maashaan intaad doobi culataan qurqurada digsiisaan mindhaa kama dacaantaan waxaan doodii uga baxay dhagihii daloolaa waanada u dexataa qalbigii dareen lana khayrkaa u daadega qofkii aan dekane iyo xaaraan durduran bay ducadiis ajiib tahay deelqaaf u diidaya murtidaan isdaba dhigay dabay raacin maayo dacaayado raqiis iyo dulmi ugama jeedee inta samaha doontaay dulucdaydu waa taas wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad buu cabdinuur u mahadsan yahay waxaan filayaa aniga iyo intii dhegaysanaysayba inay tahay dacwo na haysata cabdinuur nana tusaale na tilmaan noona taabay waxaan filayaa cabdinuur inuusan waxba nooga tegin adduun iyo aakhiro wixii noo wanaagsanaa labadaba noo sheeg waxa adduunyaal iyo waxa aakhira jira cabdinuur waxaan filayaa inuu dad badan laab kiciyey dad badanna rabbigiis ku xiray oo uu xasuusiyey haddana bal mar labaad aan dib idinku celiyo cabdinuur iyo markaan waxa uu noo hayo cabdinuur markaan waxaad noo haysaa dib u dood yaa lala doodayaa oo dib loola doodayaa cidda lala doodayaa waa ciddee dib dood waxaa lala doodayaa runtii waxay ahayd maanso deeley ah nooca saarkii caanka ahaa carays ciise allahu naxariistee noociisii bay u dhacaysaa habdhacaasay leedahay tii hore oo digniin culus ayada nooceeda waa nooca jiiftada la yidhaahdo heesaha iyo bay la bahtaa godadka maansada ayaa qayb kale ah walow labaduba deeley ay yihiin haddana silsiladii dood wanaag oo dhallinyaradu ay isku bahaysteen oo walaalka qaaliga ah runtii iga mudan inaan xuso halkaan ka xuso injineer maxamed cali cibaar oo ku nool wadanka netherland uu ahaa ninka bilaabay oo isku kaaya dubariday oo kadibna halkaas aanu ka bilownay silsiladii deeleyda ahayd websiteka somali talk ay kaydka uga dhigeen halkaas dhallinyaradii silsiladii horena ayna ka mid ahayd lambarka 14aad ee silsiladaas maansadii hore aan ka hadlayay ee ahayd digniin culus ayaa noocan markii hore aan tiriyey waxaan ugu talagalay sidaa laakiin miisaanka markii la miisaamay waxaa la rabay nooca jiiftada ah sidaa darteed baan tan banaankan ka dhigay oo iskay baan u tiriyey waxayna ka hadlaysaa afka iyo hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ayay horta difaac u tahay maxaa magaca ugu bixisay marka dib u dood hadday afka ka hadlaysa hiddaha iyo dhaqanka waxay la doodaysaa niman group adigu aqoon-yahaniin ah oo dhaliilsan in afka soomaaliga wax lagu baran karaba sideedaba cilmi in lagu daalacan karo
oo leh looma baahnaba hooyadu ha ugu heesaysto dhallaanka yaryar dadka soomaaliga reer miyiga ana caanaha iyo biyaha iyo ha ku kala gateen xoolaha laakiin magaalooyinka iyo markii aqoonta laga hadlayo waa in luuqadaha qalaad gaar ahaan luuqadaha reer galbeedka waa in la bartaa si aad haybad iyo u yeelatid ma garanaysaa golaso georges gruubkaasi waa gruubka hadda intan wax noo bartay oo canshuurtii waddanka iyo dalka intay wax ku soo barteen dibadaha noo aaday oo jaamacadaha ka soo baxay oo markay dib u noqdeen dhaqankaa la yimid dhaqan gadiska la yimid kaaga daranay hadday dhaqan wax kale la imaanayo nin walba wuxuu soo qaaday dhaqankii waddankii wax ku bartay iyagii laftigoodiibaa isduqeeyey waxaad ixasuusay cabdinuur anoo kaa dhexgalaya heestii ahayd afqalaad aqoonta miya nacam aad iyo aad maya qofka waa inta ilaah geliya waayahay dibudood iyo cabdinuur aan isaga kiin dhexbaxo waxba hadalka ayaanan idinku daalin cabdinuur adiga iyo daawadayaasha dad yow hadalkayga maqal dacwaa goobtaan ka furan rag baa deelaydan galay inaan dibudood hor dhigo inaan dulucdeeda qodo dul iyo dooxaba ka dego ka dulduuliyo dhimbilo ayay iga doonayaan raggii daakhile warkaan akhyaartii dood wadaag inaan kaakiciyo danab inaan dubayaal culculus daabgudun iyo faas la dhaco ka dulduuliyo dhimbilo dubaaqada hoose tago boogtiyo doogteeda helo dabiibo kolkaa nabraha ayay iga doonayaan si aan docwareen u dhicin inaan doojiyo murtida sidii dalawada halaad danood iyo ciid ka yimid ducaysanayaal wadaal ku doobiyey ina dawaar nirguhu daba luudayaan buudaan iyo koor dawana la suray haladay rimo ah dhulkuna doog iyo naq yahay ba'naantii daraye iyo bardoodan u dibadbaxeen dooxada xero looga dhigay dhanaan iyo daran ka helay yarkii dooyada la maray intuu dabac soo godladay intuu doobkaha u culay maraqa darida uga lulay dabeed haaneediye ka dhamay gaaxdii dihnay markaan dacwadiinna helay dabuubtiinnii akhriyey sideedaan soo dardhadoo dununacay farax dartiis halkaa dooddaa ku xidhay haddaan dibudood qabiro haddaan dabarka u gigtiro dhibnaha lama daaliye murtida qaybteeda dihin bal aan daaheeda rogo darbana hiddaheenna wacan afkiiyo naxwaheenna dihin diin iyo dhaqan waxaan lahayn si loo daafaco dhammaan diyaar garow bay rabtaa dadaal iyo maal la huro dagaal culus bay rabtaa xorriya waa duuqsantahay waxaa helay dabakaruub qabyana waa doojin roor xorriya waa duuqsan tahay waxaa helay dabakaruub qabyana waa doojin roor racan qurumaha u diday barkood ducufada noqdeen sidii dudumadii dibiray afkiiyo dhaqankii dafiray guntigu dabagibinta yaal dawaaddu u xiiran tahay ku jira badi maandayow intaas oon kuu dulmaray digniin iyo waanayd iyo dib u celin bay rabaan waxaa jira hadal da'weyn dalaalnima waa sirgaxan mid baa ahmi dayr ku jira docdiyo macashaba ku dhaga dabeed beec iyo gorgoro intuu isha baalka dabo u kala dira laba docood dulaal xoolaa niraa mid baa dudo wada nabdoon beelaha dariskee isjecel dir iyo xidid wada ahee diintoodu furqaani tahay intuu dulmi soo dhex dhigo dekano qoortooda sura siyaasi dad ba u yaqaan waxaa kaa igala daran dembina iga raacahayn midkeer dibadaha u tegay inuu darsin soo akhriyo wuxuun darajo ah hantiyo dibloom iyo darajo helo dibloom iyo magac ku helo daf yiri bulsho caadadood barkood isku diimayaan midkoodba mid uu ka dudi haddaba isdalloocintii duqayntii labada dhaqan ayuu kiisii dafiray dabay dayriyo uf yiri darkaasina waxay dhahaan af soomaaliga duxmale waxaa daliil looga dhigay inuu keenu yahay dufaar inuu duul hore ka haray inuu doqon hadalkii yahay aqoon lagu daabi karin cilmiga daadihin karayn haddaan dal shisheeye iyo luuqado dowlado qalaad la baran dana reer galbeed inaan nahay wada damiin inuu caqligeennu dumay inaan doonaani iyo daanyaro la liidanahay abwaan deelqaafka garo midkaasina waa dilaal dadkuu dhaqan dooriyaa kuwaa dublamaasi dhaha dubkiisu madow ku haray asimaankii dawakhay dabeecadihii beddelay diintiiyo sunnihii dayacay
dinjiga kufrinimo ka jecel dushana soomaali ka ah dookhiisu shisheeye yahay damiirkiisaan bilayn dadnimadiisaan culnayn quluubtaan daahirnayn daxali ay saaran tahay jahlina waa sii daciifnimadaa ku badan jahlina waa sii derderay intaas oon kuu dulmaray digniin iyo waano iyo dibu sixid bay rabaa halkaa dooddaa ku xiray haddaan dibu dood qabiro haddaan dabarka u gigtiro dibnaha lama daaliyee murtida qaybtaan dambiday bal aan daaheeda rogo dulliba dulli nooga daran kolkaan dulliba dulli nooga daran kolkaan qanjo door bidnee kudkii dawa noo noqdee dambaaburo qiiq kacdee dadkii quustoo shib yiri waa tii digarogashadii ka kacay dulin iyo qaniin waa tii digarogashadii ka kacay dulin iyo qaniin waa tii duqii ina siyaad wuxuun dooc dhaamo iyo dad fiicani noo bedelin ixsaankii uu dib jiray fidnada dacaygeedu go-ay haddana dabiqabasha jirin dig iyo doo joojin karin waa tay dowladnimo luntee midnimo deelqaaf ku dhacay 60kii dabaradii la xiray guntimihii dabacsameen labadii daraf kala furteen waa tii dagaal ooga jaan barkood daba dhilif yihiin markoodii daabaxdeen wakaa duuflaaladii dalkii loo wada dhisiyo dalaalnimadii xornimo duqowdii soo halgamay darkii leegadu horkacay kuwaan geyin deeqa waris duuggeedii ay heleen dumaal ugu soo hareen waxay dembiyaal dhigeen deerana deere u hardiin wakaa diiqii kaciyey ciyowgii cabdinuur marka qadiyadda oon hadda aan ka hadlaynay arrintan jaanibkan diiniga ah abwaanada soomaaliyeed waa ku yar yihiin ma jiraan malihi waa ku yar yihiin waayo waxaa jiray gabayo hore oo 40 iyo 30 oo diini ahaa rag badan baa ka mid ahaa oo hebel la dhihi karo laakiin jiilashii dambe ee hadda jiray gabayada dhanka diiniga waa ku yar yihiin maxaa sababay horta runtii waa yar ka yara xishoonayay inaan bointigaas qodobkaa inaan taabto oo ayna ahayn dadka afka soomaaliga doorkiisa liidaya inaanay ahayn dadka cilmaaniyiinta keliya ee xataa culammadii dhexe iyo culammada adigu xataa kuwa hadda maanta jooga ay door weyn ku lahaayeen in afka soomaaliga uu gabaabsi noqdo oo ma garanaysaa laga haajiro dee kuwana luqadii carabiga ayay dhiiri gelinayaan oo carabigii de diinteennii iyo axaadiistii iyo wuxuu dhan waa carabiga waxay leeyihiin war carabiga barta iska dhaafa soomaaligan yarka ee miskiinka ee caatada ah waxba ku baran maysaana iska dhaafa waxay keeneen nashiidooyin carabi ah waxaana jira nashiidooyin la mid ah oo soomaali ah dadka soomaalida oo miyiga u badnaa dee dhammaantood wada carabi maaha luqadda carabiga kuma wada hadlaan sidaa darteed waxaa muhiimaddu ahayd in afka soomaaliga nashiidooyin lagu tiriyo sidii sheekh cali cabdiraxmaan aadana aqoon laawe away aabbayaasha maaragtay arrintii uu tiriyey oo kale gabayadii hore la tirin jiray sugaan badan baa lagu cabiray rag badan marka waxaa la rabaa marka in afka soomaaliga dadku wax ay fahmayaan calaa qadarkooda luuqadda ay fahmayaan inaad khayrka ugu sheegtid waatay soomaalidu yidhahdeen nebi allow ninba afkii kugu ammaan waxaa jiri jiray culamo kaloo qasiidooyin tirin jirtay culammadii laftigoodii baa dariiqooyin iyo wax kala galay oo xataa hadduu khayr ku hadlayo dad badan baa hadda iska diira dulkiyey laakiin waxaan arkay in hadda dib loogu soo noqday afkii soomaaliga culammadii o dhan muxaadarooyin ku jeedinayaan gabayadii acraabiyiinta carabiga ahayd laga yara hadda la soo qaadanayo gabayadii ay ka tageen abwaaniintii weliba kuwii ahludiinka ah ay ka tageen in hadda dib loo soo xusayo taasina waa kacdoon labaad oo ummaddii soomaaliyeed hadda dhaqankii hidihii luuqadii afkii wix o dhan lagu soo noqonayo taas runtii waxaa la dhihi karaa waa musbaax ama iftiin cusub oo u soo baxay ummadda soomaaliyeed cabdiraxmaan maxaa is dhileed hadda gabayada soo socdo oo aad rabtid ama aan iraahdee maansa ha noqoto ama jiifta ha noqoto magacyadooda way kala duwan yihiin oo aan isdhihi karna cabdinuur wuu soo xambaarsan yahay maxaa ka mid a bal wax nooga taabo runtii waxaa jirtay sanadkii hore waxaa ka dhacday soomaaliya aafo abaar colaadda waaba iska jirtay laakiin waxaa galaaftay abaar
iyo macluul aan waxba u aaba yeelay arrintaas magaalada Leicester cariga UK shir lagu qabtay oo urur maxaan ku raahdaa ururada community-yaasha Soomaalida ka mid ah oo gabar Jawaahir la yiraahdo ay markaas bixisay ay markaas isku soo dubariday ayaan anigu waxaan ka mid ahaa dadku casuunaa oo waliba waqti dambe ogaaday barnaamijka lala socodsiiyey 2 saac ka hor markii la ii sheegay waxa la yiri meeshan maanta waa maalintaadii wuxuuna waa ina ka tiraadid ayaan qalinka iyo dawaada warqadda isa saaray waxaan tiriyay geeraar qaab geeraar ah u samaysan oo aan ilaahay ugu camanayo inuu roob siiyo ummadda Soomaaliyeed oo calaada ka saaro oo dowladnimadii iyo calankoodii dib ugu soo celiyo runtii waxaad moodaa sugaanteedu dhinacaas markay tahay inay horey u soconayso laakiin aanan wax kale ka gabiinba totally iskuma mashquuliyo rag badan baa waxay yidhahdeen jacaylka weligaa ma ka gabaydo waxaan idhi waqti badan uma hayo hadda kaa abaarta miyaad haysaa kaa abaarta waxaan jeclahay marka labaad oo aan stuudiyaha isugu nimaadno insha allah in aynu barnaamij fiican ka samayno waayo aad buu muhiim u ahaa waana calooliyow waa murugoonaysaa runtii ana waaba tixda keliya intaan tiriyo aan ka murugoodo markaan tiriyo waxaad tirisay inaad ka boydid ama ka oydid ama ka murugootid waa wax xaqiiqa ku kicinaya maalit markaan dadka hortiisa soo istaagay erayadii aan bilaabayba anigiiba ishayn waaye because sawirradii dadkii iyo macluushii oo dhan baad arkaysaa waad cabiraysaa erayo ku habboon cabir baad isleedahay marka arrintaas baan waxaan filayaa insha allah marka labaad aan isu imaan doono in isagana geeraarkaas oo la yidhaahdo cirgujaa la yidhaahdaa ilaahay inuu cirka noo gujiyo oo roob nooga soo daayo mid kaloo ka hadlaya barwaaqada markay tahay miyiga iyo quruxdii iyo shimbirihii iyo xoolihii cidii iyo dhiishii la cugayey iyo kaa runtii wuxuu imaan doonaa insha allah haddii hadda arrintan qabyada ah ee Soomaaliya ay noqoto arrin ka baxda qabyanimada oo Soomaalidii aynu sanadkiisa kale aanu aragno ifaalaha inuu markaas ka soo go'i kara laakiin adoo arkaya in wadankii wali guban yahay inaad barwaaqo iyo ka sheekayso xaqiiqa ama aad xataa maalintii xornimada u dabaaldegtid aniga waxay ila muuqataa wax khayrul caadiya waxaad xusuusisay waagaan iskuulka dhigan jiray waxaan aad u jeclaan jiray gabayo ay isu tirin jireen dadka reer miyiga ah iyo dadka reer magaalka marka qoladii reer magaalka waxay duqaynayaan ay durayaan qoladii reer miyiga waxay leeyihiin wala daacuflow reer miyaan doocna garanayna dabla siday aroortii hadduu daamanka isdhaafso yaa wuxuu leeyahay haddii roob ilaahay subo duni barwaaqeeyo oo doobi caanaha riyaha looga dalaf siiyo oo radalo doondoon ku helay uga dambaysiiyo isagii duqdiisii kolkaa dowlad la ismoodi wax ka maqanba ummaddan adaaba sheegaya baarlamaan lagu diriray iyo waxaan ninkaa hadduu ilaahay roob siiyo oo riyihiisu u dhalaan oo geeliisu u dhalo oo lo'diisu maaragtay caano uu ka helo oo beertiisu u soo go'do ama uu umaba baahnaba isagaaba dowladda waxaa la yidhi haddii roob ilaahay subo oo duni barwaaqeeyo oo doobi caana riyaha looga dalaf siiyo oo radal uu doondoon ku helo uga dambaysiiyo isagii duqdiisii kolkaa dowladda ismoodi ma garad ya marka wax ka maqanba male marka waxay ku tusaysaa dadka miyiga hadday roobkaa helaan iyo nabad waxay u baahan yihiin male waa barwaaqa dhulkeen xabag heshaya miro goosataya qootin diirataya beer tabcataya ugaarsataya miro gurataya bismillah hawada keliyaaba waxay tahay caafimaad hawada Soomaaliyaaba caafimaad iyadii baanu hadda daltabyo iyo bohliyow baan hadda inaan u oyno baa la taagan yahay halkeen ay nabad iyo sama ilaahay noogu celiyo cabdiraxmaan warankaa igu ligligin maya weli dareena ama damqasho ah ma ku galay oo aad istiraahdo alleylehe wax ka dheh waxaanan u socdaa halkaan u socdaa waxa ay tahay dadka Soomaaliyeed ee nala midka ah ee la riixo dadka iyaga wali wax ma ka tiri dulmigaas sema ka hadashay
qursigu qiil ma leeyahay oo kale iyo dhulgariir oo xadraawi abwaan xadraawi ilaahay maaragtay dembigiisa ha dhaafo cimrigiisana allah u barakeeyo gabayga dhulgariir oo tiriyey iyo gabayo badan oo hadda socda runtii waa arrintaas weliba aniga history taariikh baaba iga qabsatayba waan jeclahay runtii inaan ka hadlo arrintaas marka ay ii okobanaato in aan arrintaas alla yidhaah aan wax ka tiriyo welise ma bilaabin ma laga yaabaa erayo ahaan dambe oo labaad inaad arrintaa ka hadashid haddii alla yidhahdo ama kaa ha noqoto kulankeenna labaad ama kulamadeena dambe oo xiriirka noqon doona ha noqoto yun baan wax ka oran doonaa insha allah. cabdinuur yurub soonkeedu iyo kii markii aynu joognay soomaaliya way kala duwan yihiin hadda waa ogtahay kan saacadihii dheeraha aanu soomaynay ka waran soonkan iyo kan soomaaliya la dadku waxay maqlaan 17 saacadood maadaama adigu labadiiba aad soo martay horta anigu yurub waxaan soo galay 1989kii waa gartay bila yar markaan joogay waxaa igu bilaabmay inaan bishii ramadaan soonqaad waxaan u malaynayaa tan oo kale ama mid weliba ka sii ciriir badan inay ahayd dhowr iyo 20 sana laga joogaa waxaan garanaynaa ardayna waa ahayn annagoo afuradii samaysanay oo cishihii markaanu tukan cashada dabcan inaan cunno ayaa qoraxdiiba dhinaca kale ka soo baxaysa 4 saac keliya baanu waxaanu haysanay inaanu ku afuro salaadaha ku tukanno ku suxuuranno hadda weli heerkii waagaas iyo wixii nagu dhacay oo aan niri warniyow qaar baaba dhallinyaradii waxay yidhahdeen warniyow labadii aynu iska nigeysano 12 saac inta loo adkeysan waayo kulaylka iyo dhibaatada iyo meel dhul aanu ku nool xataa dad badan Soomaaliya ay degan yihiin ma 5 arday baanu ku joogno waddanka waxaa la yidhahdaa Kirgizia waa ex-Soviet Union marka hadda sanadkan noloshayda soonkii hadda sanadkan soon iiga farxad badnaa noloshayda ma arag 16 saacadood 18 saacadood baa la soomayaa 6 saacna waad afuran tahay laakiin wax ka farxad badan oo iiga wanaagsan oo niyadayda ay ku qanacdo waa soonka kaliya aan wali xusuusnahay dadku isku wada raacay arrintaa iyadaa soonkan la sheeg dadkuna u baday inuu ahaa soon runtii aad iyo aad u dheer laakiin qof walba uu leeyahay soonkan oo kale ima soo marin oo qof walba uu leeyahay salaadihii raaxadan ku tukanay iyo markii dambe 10kii ugu dambeeyo tahajjudka la tukanayay dadku aad bay soonkan raalli ugu ahaayeen oo ay u muujinayeen reereyn waxyaabaan hadda 4.5ka iyo 4 iyo barka iyo qof iyo naaquska iyo waxyaabahaas waxay yihiin waxyaabo xataa anigu mar horaan ka hadlay waqtiga carta lagu soo bandhigay arrintan yaan uga hadlay in qabiil casrigan lagu dhisaa dowladnimo caam ah waa calaa alxaal iyo nin raga caade helidiisa ragow taa ka caanaqa intaan baduhu soo caarin bari war waxaan iska dayay qashinka isaga gub wallahi waagaasaan niri dowladnimo Soomaaliyeed in la yiraahdo qabiil iyo casabooyin baa lagu salaynaya waa waxaan ku cuntami karin markaad qof weyn oo muwaadin oo Soomaali oo maxaan ku raahdaa aad tahay haddana in iyagii laftigoodii ay isa sii quursadaan waa wax kale Soomaali garan marka hadda de waa xilliga laga hadli lahaa wey waa xilliga ummadda Soomaaliya ay gacmaha isqabsan lahayd midoobi lahayd aniga iyo dhammaan shaqaalaha Soomaalisaad iyo abaan Cabdinuur oo ila fadhiyo idilkeen waxaanu ku leenahay kullu caam wa antum bikhair